ما أن كدور هلا يوم مجاهد هلا هيو وحياة يندد نفتودي مالكودي يو حنتيدودي عردودي شرفتودي الواحد قدبي وأنت سعيدة إن الدفاع عن واجب كتاه جريتان كودي تدنمدودي حنتيدودي نفتودي وضل بلشت مدة دير نسمر هيي أو سوق هيي إن لهلا أغلى الشقية أو سليمة أما باش عالمكو هنوكر لسو أما أمد الصوماليات أو حقيقيا وناق الجعل أو حمانتها أركيسو وفرماجيه تلكيسي يكون غنيان إيه حمانتها يكشغينيان أركيسي حل أي كانها هذا وأنا أسكت إني حقيقيا دولة قبل دهان وهو مهد علني يا بدحونها نجا إيو مدح كلو فربنا الصوماليات أو وناق هذين السي ومشرحين تدلك إكمديهين وكمدي هاي مدحونها بوتلان حقيقيا شعب كيسي انت باقي مسؤولين تيسا oo ku fikirtay in badan in la helo isku day siyaasadeed oo wanaag ah oo lagu kala badbaadiyo dhiig laguna qabto dulmiga iyo xumaanta oo ka shaqeeyay Maxamed Abdullaahi Farmaajo wax rabbi qadarayo way qadarayeen way dhicwada arrinta sida dulmiga muddo dheer baa loo dul qaadanayay laakiin waxa xaqiijinaynaa inaan u dul qaadan doonin hadda kadib hadii rabbi marna la aysan dhacaynin in la dulqaato dulqaadna uu dhamaaday weerarkii bishii sanadkii hore laga dhamaaday bishii saddexaad shanteedii ay ku soo qaadeen labadeedii ay ku soo qaadeen ciidankayga soo ka digan degmada Balaxa qayb ka mid ah iyadoo uu nala joogay xilliga ciidan madaxweyne ku-xigeenka dowladda goboleedka sidoo kale aniga iyo wasiirro kale xildhibaanada halkan fadhiyay xildhibaano kale intaba ay ku soo qaadeen kay kala mid ah oo arbushaad iyo gardarro ah nagu socday habeeno iyo maalmo oo u dul qaadanaynay oo aan diidanay inaan ka falcelin لكن هذا وانا فلعلنا وانا دقالمينا اريق اوشيغي جنرال عباس وقول اما قيرئة وانا قادنينا بإذن الله تعالى وحربا انا اودي شعب كيغي صوماليات وكنا القبل شعب كيغي صوماليات قارهان في جبلان كنا القبل كيغي كنا القارهان دقمدا بلحا وهذا وحي ان حيرينيني oo ahayd inuu guri kana guban ahayd shacabkana inuu sabarkicin ahayd inay sad khasaare dhicin laakiin ay xeerin waayeen Maxamed Abdullaahi Farmaajo teamkiisi annakana hadda meesha ay ku taagnaayeen ba istaagna waa ka tagnay xaruna marka naftooda iyo maalkooda inay badbaadsadaan reeblaw saacadan naftooda iyo maalkooda inay badbaadsadaan oo qof kasta meesha uu ku maadan karo oo naftiisa iyo maalkiisa uu ku badbaadin karo in uu ka shaqeeyo si uu badbaadiyo annagu waxaan galeynaa xarbi ama dagaal sharci ah oo xaq ah oo cirdigaana iyo sharaftanada ku difaacin mana u dulqaadan doono aqliga aragtida guracan ee foosha xun ee shaatiga dawladda loo geliyay hadduu qabo Farmaajo ee bisiyada ummadda Soomaaliyeed ka dhaxayo ay leedahay oo dawladda Turkiga ay ku deeqday in lagu diriro argagixisada dalka ka jirtay lagu diriro ay u keentay haddii uu adeegsaday in uu shaatiye gaar ah ku sameeyo jabhad gaar ah ku abaabulo dana gaar ah ku sameeyo mid asaga shakhsiyan uu kursi ku raadinayo iyo mid uu dad saldana ugu raadinayo intaba taas waxay ka dhaxayeen ummadda Soomaaliyeed raas casayri raas kambooni baa la isla lahaa qaranka Soomaaliyeed baa iskale laakiin anagu waxaan leenahay kuwa aan anaka dawlad goboleed ahaan si gaar ah u leenahay oo ay shacabka iyo askarta iyo mas'uuliyiinta reer Jubbaland ay leeyihiin wax kasta oo awood oo aan leenahayna goobta aan taaganahay oo buuraha waduleedkeeda aan keenina dagaal kastoon ku jirnay oo kalena waa joojinayna sababtoo ah degmada Balaxa oo hadda dagaalku ka dhacay oo aan ka hadlayno xumaanta iyo foolxumada ka jirto oo Farmaajo u soo raray gobolka Gado ama garaan reer Jubbaland xamalina 2011 bishii saddexaad shanteedii waxaan ka qabanay ururka al-shabaab oo haystay muddo dagaal laba jeer aan ku jabnay kiis dhaxdan ku qaban waxaan waa kuwa aan ka qabanay dadnimo iyo sharaf iyo amaano inta inay uga fiican yihiin Farmaajo teamkiisa waan huwa taas wax shaki igama jiro haddii marka tala guracan ama gumaysi gaar ah ama qarannimo Soomaaliyeed oo la isla ogol yahay wax ka duwan oo dana gaar ah haddaan deynayna al-shabaab u deynayna buuraha
Jubbaland degmooyinkeeda Kismaayo waxaan maranayaa degmo la qabto gobolka deegaanka Jubbaland kamid ah Bareero ugu dambeysay oo degmooyinku uu tirinayay General Abbas iyo deegaanada uu tirinayay waxaa la mid ahaa xilliga iyada la qabtay Buulaxaawo Luuq Garbaharri iyo deegaano kale haddii marka qof dana gaar ah leh ama fikri gaar ah ku socdo ama aqriti gaar ah leh aan u deynayno kuwaasoo raba inay ka amaano badnaayeen ka dadnimo badnaayeen ka farmaajiye tiimkiis baa u deyn lahayd may aqbalayno mana dhacayso in nin diaspora ah oo baasaboor wato dalka u soo doontay xil saacadu xilka waa ina tagayo inaan deegaanadanadii iyo dalkayagii iyo dawladnimadanadii iyo calankanagii astaanta gaarka noo hayo ummadda Soomaaliyeed aan wax kula darsanay oo diido oo aan ka aqbalno oo ga tagno diyaayadeen marna ma dhacayso dhalinyarada Soomaaliyeed oo ciidamada ah oo la qalday oo ku hayno maxaabiista ah kamid ah annagu waxaan ognahay dabcan shaati dawladda loo gashaday mushaar yar oo joogto loo siiyay iyo shaati dawladda loo gashaday baa la isku dilahayaa ragooda kale iyo dadkooda kale deegaanadii ay shalay ay ku xoreeyeen qayb badan oo kamid ah laga dabal xaw ku dirirayo ama Galbaarey laga keeno ama Balax laga keeno Buurdhuuba ama laga keeno Baardheero ama Luuq iyo Doolo iyo Buulaxaawo ha sii joogeen ama dalka Soomaaliya deegaanada meesha Muqdisho laga keenay waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo cadow dawladnimada dalka iyo qarannimada dalka inay u shaqeeyaan xaq u lahaa cadowga dalka ka jira in la diraan oo gaarka aan xaq u lahaa laakiin hadafkii mabda asaga waa la soo doomariyay waxaan leeyahay kii dhintay oo u tacsiinaya san kuwii hore ugu tacsiiyay midka dhaawacana waxaan leeyahay Allah caafiyo midka aan hayno oo maxaabiiska ahna oo ma aragno cadow aan hayno nin aan nasiib darro dhacday cadow ku noqday oo lagu qabtay asagoo dagaalamay oo aragnaa laakiin dagaalka aan kula jirnaa wuxuu yahay dafcu saa'il waxaan aaminsanahay inuu annaka saaki dhiigooda loo bannaan yahay inta ay dulmiga hor socdaan inuu dhiigooda saaki loo bannaan yahay laakiin kuma faraxsanin inayna dilaan oo aan dilin waxaanu hubaa farmaajo xilka maalmaha u dhiman dalka wuu ka tegi baasaboorkiisu qaadani maruu ku soo noqonayo waxaana tusaale idiin ah shalay markuu ra'iisul wasaaraha ahaa 6 bilood markii uu ka tegay xagu aadi ma dalku sii joogay ma Muqdisho joogay ma Galbaarey iyo Balax iyo Doolo joogay ma Cabuud Waaqo uu dhashu joogay ma Kismaayo joogay ma waqooyi iyo bari joogay meesha uu aaday oo ka yimid hadda markuu xilka soo raadsanayay buu aadi doonaa laakiin adinka dalka joogi doontaan baasaboorna ma lihidin meel kalena uma socotaan ninka dhintay ninka dhaawacmana farmaajada kama dhimanin mana ogo mana yaqaano lamana socdo xanuuna kuma hayso waxaana shaki iga jirin dulmi inuu dhammaanayo oo farmaajo uu tagayo oo insha Ar-Rahmaan dawladnimada Soomaaliyeed dad daacad ka ah oo aan dad gaar ah tayeynaynin oo xumaan gaar ah u soconin oo qabyaalad ka shaqeynaynin oo xil raadinaynin gaar ah oo mas'uuliyadda loo dhiibtay oo amaanada ah ku shaqeyn doona in ay la wareegi doonaan wax kastoo halaysan ay hagaagi doonaan insha Ar-Rahmaan shaki iga ma jiro waxaan rabaa inuu celiyo walaalahay reer Djibouti dawladda ayadoo hore saaxiibada ay ugu mahad celiyeen gaar ahaan madaxweynaha dalka Djibouti waxaa jirtay qaacido ama hees caan ah oo ahayd calool nibir baa ka soo celisay Ismaaciil Curgeele maanta cadow ma ahan shalayna Soomaaliya dawladnimadeeda calool nibir inuu ka soo celiyay oo ugu jirto warbaahinta iyo baraha bulshada iyo ummadda Soomaaliyeed qof kastoo la weydiiyay eraygaas xilligu baxay aqoon buu u leeyahay ayadoo qarannimada la waayay 30 sano ay marayso burburtay Soomaaliya isku keen waayay shacabka reer Djibouti iyo madaxweynahooda Soomaaliya isku keenay calanka Soomaaliyeedna dib iyo qarannimada dalka ugu soo celiyay cadowna ma ahan mana ahan doonaan oo walaalahano waxa ciidamadooda u naqaanaa markaan ciidamada kale oo dalka ku jiro oo amisom iyo oo amisom ha aadeen ama nan amisom ha aadeen dalka Soomaaliya ku jiray aan dawladda hebel iyo amisom u kala naqaanay ayakii heel walaal baa u naqaanay inay walaalahan yihiin oo inoo soo heeliyeen baa u naqaanay sababtoo aan diib bay ahaayeen luqad bay ahaayeen
nala jinsiyad bay ahaayeen nala damiir bay ahaayeen dowladnimada iyo qarannimada way noo soo celiyeen hilka ay noo galeen mana ku amaal dhici doona insha Allah raxmaan annaka nool awlaadannadana tii nool kuma amaal dhici doonto insha Allah raxmaan